السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal ku soo dhawaada warkii caalamka. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamida liiska golaha wasiirada dawlad goboleedka Galmudug oo la filayo in lagu dhawaaqo. maxay dawladda federaalka Soomaaliya uga jeedaa in bandowga habeenkii ay soo hormariso? dawlad goboleedka Puntland oo sheegay in gabi ahaanba aysan soo gaadhin lacagihii dawladda federaalku ay horey ugu qoondeysay. qodobada wararka dibadda aad ku maqli doontaan waxaa kamida dawladda wadanka UK oo sheegtay inay aadaanka kor u qaadi doonto inta loogu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. waa maalinimo Khamiisa bisha Abriil ay ku beegan tahay 23 sanadka 2020. daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan. aan ku bilaabanay liiska golaha dawlad goboleedka wasiirada dawlad goboleedka Galmudug ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo. madaxweynaha dawlad goboleedkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo liiska golaha wasiirada xilli aad looga dhowr sugayay inuu ku dhawaaqo wasiiradaasi. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa la xalaal sheegay in dhaweyd badaba heshiin guud waday xilli markii madaxweynaha dawlad goboleedkaasi Galmudug uu ku wareejiyay xilka. Qoorqoor ayaa waxaa la filayaa in wararku ay sheegayaan in xilli wasiirada u magacaaba baa la yidhi xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo mucaarada, waxaana xildhibaanadaasi kamid ah balay Axmed Macalin Fiqi iyo waliba xildhibaan Saabir Shuuriye. Axmed Macalin Fiqi ayaa la filayaa in loo magacaabo wasiirka amniga sida ay baraha bulshada ku qorayaan baa la yidhi dad ila lagu kalsoon yahay, waxaanay sheegayaan in xildhibaan Saabir laga yaabo in loo magacaabo wasiirka dekedaha, halka xeraaliyihii guud ee qaranka ee hore loo magacaabo Axmed Cali Daahir loo magacaabi doono wasiirka cadaaladda ee dawlad goboleedkaasi Galmudug sida wararku ay sheegayaan. waxaana la filayaa in dhawaan ay soo baxaan liiska golahaasi dawlad goboleedka Galmudug. dawladda federaalka Soomaaliya maxay uga jeedaa bandowga ay soo hormarisay? dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqday inay soo hormarisay bandowgii ayna ka dhigtay 1 saac. taliyaha booliiska Soomaaliya waa Cabdi Maxamed Xijaar ayaa soo saaray waxa uu ku sheegay in 1 saac oo fiidnimo ay ka bilaabanayso bandowga xilli bisha Ramadaan ay soo dhowdahay, waxaana dadka qaar ay sheegayaan inay caqabad ku noqon doonto bandowgaasi la soo hormarinayo xilligii taraawiixda dadku ay tukan lahaayeen afur lahaayeen. dadkuna waxay sheegayaan inaysan suurtagal ahayn bandowgaasi dawladda federaalka ay ku dhawaaqday. wararka ayaa sheegaya in dawladda federaalka Soomaaliya ay uga jeedo inay bisha Ramadaan ammaanka ku adkayso dhaqaaqna ay ku yarayso, halka wararkuna ay sheegayaan in dawladdu ay uga jeedo in ay bandowga ku yareyso caabuqa coronavirus. maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay inay gabi ahaanba ayna soo gaadhin lacagihii dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu qoondeysay. maamulka Puntland wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dawladda gobolka Cabdinaasir Yuusuf Xaaji Xirsi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe caasimadda Puntland ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba ayna soo gaadhin lacagahaasi. waxa uuna sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay baalmartay wixii ay u qoondeysay. waxa uuna sheegay in gabi ahaanba lacagahaasi ayna soo gaadhin. waxa uuna intaasi ku daray in Puntland ay isku fillaan doonto ayna tallaabo geesinimo ka qaadi doonto haddii lacagahaas la siiyay iyo haddii aan la siinba. wasiir Cabdinaasir ayaa waxaa intaas uu ku daray in ay xakameyn doonaan cudurka coronavirus. wasiirka ku-xigeenka oo ah gudoomiyaha guddiga ka hortagga caabuqa coronavirus waxaa intaas uu ku daray in gabi ahaanba ay Puntland heegan buuxa u gelisay xuduudaha Puntland waa sida uu sheegay caabuqa coronavirus ayna joojiyeen qaadka iyo waliba waxyaalaha kale ee ka soo galaya xuduudaha Puntland. wararka dibaddana waxaa kamid ah dawladda wadankaasi UK ayaa ku dhawaaqday inay aadaanka kor u qaadi doonto inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
wasiirka cadaaladda ee wadankaasi Britain ayaa waxa uu sheegay inay aadaanka kor u qaadi doonaan inta lagu jiro bisha Ramadaan, waxaana aadaankaasi maqali doona kumanaan ka tirsan muslimiinta wadankaasi UK oo waliba ay Soomaalidu u badan tahay. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in socod doonto wadanka UK ayaa waxa uu ku jira wadamada Yurubta ee aadaanka aan kor loo qaadin, waxa uu intaasi ku daray in uu sii socon doono in aadaanka kor loo qaado. guud ahaan waxaan intaas ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalka iyo daafaha dunida naga soo galay, waxaana ka daawanayseen channelka Joker News. inta aan war noocan ku kulmi doono waxaan idin leenahay nabadino. Jabuuti qiimahaaga weeye, jigjiga quruxdaada weeye, Gaarisa qaydkaaga weeye, Muqdisho qoridaada weeye.